بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxa aan ku soo gudbinayaa qodobo ku saabsan xarigaygii ahaa bishii 15keedii 2017 waana 8 qodob oo noqonaya qaybta koobaad waxaana jiri doona insha Allah qaybo kale kow waxa la igu xiray amar la'aan maxkamadeed qalabkaygana waxa lagu baaray fasax la'aan maxkamadeed labo qodobada la igu soo eedeeyay ma yahayn kuwa ay khuseeya cadayna lama horkeenin maxkamadda saddex nuxurka eedeymahaygu waxay ku saabsanaayeen xamar aadideedii madaxweyne farmaajo taageeristiisii iyo dekadda iyo saldhigga berbera ee la kireeyey ka hadalkoodii afar xeeraalinta iyo boolisku waxay maxkamadda caddaymo ahaan u hor keeneen muuqaalada aan daljirka dahsoon ee magaalada xamar farxadda kula wadaagayay walaalahay doorashada madaxweyne farmaajo kadib iyo sawirro aan muqdisho ku galay oo aan iyagana facebookayga ku baahiyey waxaana ka mid ahaa sawirro aan la galay madaxweyne farmaajo iyo kuwo aan la galay dad kale iyo muuqaal aan hore burco ugu qabtay oo aan ku diidayo in la adeegsado weedha ah dadka afka Soomaaliga ku hadla iyo in loo bedelo dadka Soomaaliyeed ama dadka Soomaalida ah iyo muuqaal aanan baahin oo telefoonkayga gacanta ku jiray oo ahaa kaftan ku saabsan caagado mooyo sixa ahaa oo lagu qoray farmaajo isku soo wada duub oo saddexda muuqaal ee lagu soo bandhigay maxkamadda horteeda waxa laga soo saaray telefoonkayga gacanta shan wax la xiriira Soomaaliya ayaa la igu soo eedeeyay halka xeerka ciqaabta la cuskaday uu ahaa kii Soomaaliya lix garsooraha xukumay waxa uu u sheegay warbaahinta in dhageysiga maxkamadaydu ahaa 3 maalmood oo min 9 saacadood ah taasina may dhicin ee waxa uu ahaa dhageysigaygu 2 maalmood oo min 2 saacadood ilaa 3 saacadood ah iyo maalin in ka yar 30 daqiiqo oo lagu dhawaaqay xukunka toddoba uma gudbin kumana oran garsooraha xukumay waan ku qanacsanahay xukunka iyo qirasho dambi sida uu u sheegay isagu warbaahinta xaqna umuu lahayn ogolaanshana umuu haysan afkayga inuu ku hadlo qareenadayda ayaa wakiilo iga ahaa wayna cadeeyeen halka aanu ka taagannahay xukunka qodobka u dambeeya ee 8aad gudoomiyaha maxkamadda sare xukunkayga kadib waxa uu warbaahinta u sheegay eedeymo ka duwan kuwii ay xeer ilaalintu igu soo eedaysay sida dalalka jaarka ah ayuu Cabdimaalik ku kicinayay dadweynaha gudoomiyuhu sidoo kale dacwad aanu garsoore ama goob jooge ka ahayn ayuu yiri coldoon dambi baa ku cadaaday intaa waxa u dheer inuu ahaa kii loo soo rafcaansan lahaa ee ahaa inuu dib u eego inaan cadaalad helay iyo in kale allah mahad leh waad maasantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh